akhyaray soo dhawaada jimco wanaagsan ayaan idin leeyahay meel kasta oo aad joogtaan halkan si fiican u soo eeg ninka sawirkan idinkaga muuqanaya waa madaxweynaha jamhuuriyadda Senegal war weyn ayuu soo saaray waxana uu dhabarka ka jabiyay hogaamiyahan kale idin muuqanaya oo lagu magacaabo Emmanuel Macron waa madaxweynaha Faransiiska ninkan dhalinyarada ah ee hogaamiye jamhuuriyadda Senegal war ayuu soo saaray waxana uu ku yiri ciidamada Faransiiska ah ee dalkeena jooga waa in si degdeg ah looga saaro dalkeena inta ay ciidamada joogaan ma ahaan karaya mid goba sida daraadeed si gobanimadeena ay u noqoto mid macna iyo xiiso leh isla markaana dadkeena ay u dareemaan neecawda gobanimo waa in nimankan askarta ah ee Faransiiska ah dalka laga qaado arinta kale ee yaab kale waxay tahay ninkan dawladda Faransiiska si toosa warka uguma sheegin laakiin wakaalada wararka la yiraahdo Agence France Presse AFP ayuu waraysi gaar siiyay waxana uu yiri dalkeena geeya fariintan Emmanuel Macron ah loo sheego ciidamadana hana la dhaafiyo waxa uu raacaya wado ay hore u raaceen Niger iyo sidoo kale Burkina Faso iyo Mali oo ciidamadii Faransiiska ay halkaasi joogay lagu yiri isma rabno idinaba sidoo kalena idima baahnin halkaasina ay la wareegeen dhalinyaro dhinaca militariga ka timi maadaama isaga uu rayidka ka yimid ninkan in talada dalkaasi ay la wareegaan Faransiiskana ay dhabarka xijiyaan haddaba arintan galbeedka Afrika ka taagan yaa ka shaqeynaya Senegal sayay hadda isku haleynaysa haddii ciidamadan meesha ay ka baxaan suuragal ma tahay qalalaasa amni in halkaasi laga hirgeliyo barnaamijkan Barrow Show ayaad ku ogaan doontaa sidoo kale waxaan rabaa inaan idin la wadaagno ma maqli jirtay qayladii yeertaba qolay qayr u tahay dhimashadii Xasan Nasrullah iyo Sayfidiinkii isaga ku xigay iyo waliba baabi'itaankii qasaarihii soo gaaray Xisbullah weerarka ka socda ama dagaalka Ruushka uu ku jiro iyo qalqalka amni ay dareemayaan Iran maadaama ay Israel hadda ay farays ku hayaan waxa ay faa'iido u noqotay sunniyiintii dalka Syria ku noolaa sida baan loo gumaaday sanadkii 2011 hadda dagaal adag ay ku jiraan waxa ay la wareegan magaalooyin ay kamid tahay Hadlab iyo qaybo fara badan oo gobolka Idlib oo Syria ka tirsan saacadaha soo socda waxaa laga baqayaa inay gudaha u galaan caasimadda Dimashq ee Syria Bashar al-Assadna qasrigiisa loogu tago haddaba yaa biritaaraya nimankan dagaalamaya ma Israel ma Turkiga mise Qatar su'aalahaasi ayaan rabaa sidoo kale barnaamijkan inaan kaaga jawaabo meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leenahay soo dhawaada jimco wanaagsan waa 29 November sanadka 2024 meel kasta oo aad joogtaan ku soo biiray YouTube-kana oo subscribe dhaha sidoo kalena muuqaalka la wadaaga saaxiibadiina sida aad la socoteen baqaradan Afrika isbedelo waaweyn ayaa ka soconayay wadamo fara badan oo reer galbeedka markii ugu horeysay ku hoos jiray ayaa hadda waxay u muuqanayaan in ay ka hoos baxayaan oo dhabarka loo jeediyay wadamada galbeedka ee ku jabay qaradan Afrika siyaasad ahaan waxa kamid ah dalka Faransiiska oo kamid ah gumeystayaasha saan cadaalaha ee qaradan Afrika soo gumeystay dhibaatooyin fara badan ayaa haddaba laga tirsanaya Faransiiska dalalka laga eriyay waxa kamid ah Mali waxa sidoo kale kamid ah Burkina Faso Niger hadda se waxay taagan tahay dalka Senegal ninkan dhalinyarada ah ee hogaamiye dalka Senegal ayaa war soo saaray waxana uu la hadlay wakaalada wararka ee AFP waxa uu ku yiri ciidamada Faransiiska ee dalkan jooga waa inay si degdeg ah dalkeena uga baxaan waxa uu adeegsaday kaar ama qodob dad fara badan oo reer Senegal ay aad u soo dhaweeyeen waxa uu ku yiri ciidamadan inta dalkeenu ay joogaan uma ekaan karayna dal goba oo horumar fiican gaaray oo dunida wax la qaybsan karaya sida daraadeed ciidamada waa in si degdeg ah ay uga baxaan waxa uu yiri Faransiiska waa inuu la yimaado tilaabo ka duwan hanaanka joogitaanka ciidamada iyo in isaga qaradan Afrika iyo dalalkii uu gumeysan jiray uu wax u yeeriyo waa inuu fahmaa ayuu yiri in waxa ay yihiin dalal kala madax bannaan kala qadiyad ah
isla markaana qaanuunkooda uu shaqaynayo loona baahan yahay in danta faransiiska uu leeyahay ay ka weyn tahay danta afrikaanku ay leeyihiin taasi marka waxay keentay buu leeyahay in ciidamadan aynan aqbali karin oo ay si degdeg ah fariisimaha iyo baysaska ay joogaan ay uga baxaan haddaba su-aal ayaad isweydiinaysaa oo waxaad leedahay ciidamadan ninkan uu leeyahay hal la saaro maxay halkan ka hayeen sidaad la socotaba Senegal waxay ka mid tahay dalalka Paris aad ugu dhawaa isla markaana gumaystohii Afrika gumaysanayay iyaga Faransiisku ay ku hoos jireen Faransiisku waxa caadiyan dhaqan u ah dalalku isaga uu gumaysto in inta badan kaydka lacagtiisa ay taalo banki ku yaala magaalada Paris ee caasimadda jamhuuriyaddaasi Faransiiska laakiin sanadihii ugu dambeeyay Emmanuel Macron markii uu talada yimid waxay u muuqanaysay in isbedel weyn uu gobolkaasi ka dhacayay dalalkii uu gumaysan jiray isku dhowdhow ay ka mid yihiin Niger oo uraniumta uu ka heli jiray inta badanna tamarta korontada dalka Faransiiska laga soo saari jiray oo halka laga qaadi jiray Mali wad ogeydeen oo Faransiiska dhabarka ayaa la xijiyay Burkina Faso Ibrahim Traoré markii uu qabtay waxa uu ku yiri waa inaad isaga tagtaan halkan laakiin hadda Senegal ninka markii uu yimid waxa uu ahaa nin xamaasi ah oo dhalinyaro ah oo faa'iido badan dadka u lahaa wax badanna isbedel ku sameeyay ciidamada waxay halkaasi u joogeen dalaha Faransiiska inay ku ilaaliyaan iyo tan reer galbeedka haddaba dalalkan isku hadlay sidaad la socoteen Baruushka kooxdiisa caloosheed u shaqaystayaasha ee Wagner-ka ah ayaa waxa ay yimaadeen qaaraddan Afrika galbeedka waxaana ay sameeyeen in dalal fara badan ay xiriir la sameeyaan Ruushka oo halkan soo gala ayaa sabab u noqotay in dhalinyaro fara badan oo awood lahaa oo Britaano isla markaana siyaasaddu ay ku guuleystaan qaarkoodna ay afgambi sameeyaan qaarkoodna talada ay doorasho ku yimaadaan kadibna jihadii waddanka ay ka bedelaan oo dhinaca Ruushka ay u jeediyaan marka waxa muuqata hadda dalal ay ka mid tahay Senegal in looga adkaaday reer galbeedka ee weli halkan Ruushka uu ku gacan sareeyo laakiin su'aal ayaa taagan tallaabada ninkan uu qaaday iyo dalalka kale ee halkaas ku yaala ma kula yihiin kuwa wax weyn soo kordhinaya wadamada reer galbeedka uu Faransiisku ka mid yahana ma aamusi doonaan su'aashaas aragtidaada qaybta hoose ee nagula aad qodobkaas halkaas ayaan uga gudbayaa sidaad la socoteen badalka Syria nidaam ayaa muddo dheer ka talinaya oo Bishaar Xaafidudiin al-Asad uu hogaaminayay hadda nidaamkaasi dhibaatooyin xoog la ayuu wajahayaa dalkaasi deganaanshiyo siyaasadeed kama jirin laga soo bilaabo 2011 markii ay dhaceen wixii loo yaqaan Rabiic al-Carabi ama gugi carabta Bishaar al-Asad inkasta oo xukunka ku dhagay haddana waxa uu taageero ka helay ciidamadiisa dagaalka ay la galeen mucaaradka dawladda Iran Hezbollah oo Lubnaan joogtay iyo Ruushka hadda saddexdii dhinacba dagaal ayay galeen nimankii ahaa sunniyiinta ee weerarka ku jiray oo Tahriir al-Sham nimankan la yiraahdo kamid ahaayeen waxay la kulmeen xasuuq baan magaalooyinkii Xalab iyo gobolka Idlib iyo Rif Idlib meeshan la yiraahdaba dadka ayaa lagu baabiyay waliba xasuuq u dhigma kan ka soconaya magaalada Qasa caalamka ayaa yaabay wixii halkaasi ka dhacay hadda maadaama ay dhibaatooyin dhaceen oo Hezbollahna jab ay la kulantay oo Israa'iil ay madaxdoodii baabiisay Iran ay keeblayoorar la tahay Israa'iil Ruushka oo Ukraine ku jiro weerar ayay ku qaadeen dhulkii hore looga saaray hadda waxay la wareegeen Xalab iyo meelo kale waxaana suuragal ah la leeyahay in ay qabsadaan caasimadda Dimashq Bishaar al-Asadna markaan xukunkiisa qalqiilayo ku jiraa dad fara badan ayaa haddaba bilaabay nimankan in ay yiraahdaan ma Israa'iil ayaa taageeraysa laakiin marka la fiiriyo nimankan sunniyiinta ah waxay garab ka helaan inta badan dawladda Qatar iyo Turkiga sida xogaha la qorayo ee warbaahinta qaar ay tabinayaan hadda Syria marxalad kale ayay gashay xaaladuna waxay tahay qayladii yeertay qolay qayr u tahay suuragal ma tahay in sunniyiinta 74% ah tirada dadka dalka Syria in talada muddada dheer nimankan shiicada gacanta ugu jirta ay kala wareegi karaan haddii ay la wareegaan waxay soo kordhin karaan waa su'aal taagan in laga jawaabo intaas ayaan ku eebiyaa qaybta koowaad ee barnaamijka Barrow Show saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay nagu soo biira oo YouTube-kana subscribe saara muuqaalkana la wadaaga saaxiibadiin
qaybta hoose